بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينك وحيينك دولة بنتلاند دوميها iyo ku-xigeenka baarlamaanka golayaasha dawladda ururada bulshada haweenka dhalinyarada isimada iyo culimada ciidamada iyo dhammaan halka inta joogta dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa maanta muddo dheer kadib soo noqoshadii aan ku soo noqday caasimadda Puntland soo dhaweynta diiran ee shacab iyo xukuumad iyo baarlamaan iyo dawladda oo dhanba ay nagu soo dhaweysay runtii hawl qaran baan ku maqnayn wax badan oo la filayay in horumar laga sameeyo ayaa laga gaaray waxaan aad uga mahadcelinayaa dhammaan madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka muddadii hadda 2 bilood ama 3 bilood ahayd ee hawlaha shaqo marna aan u joognay Dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 hawshii lagu qabtay iyo muddadii u dambeysay bisha ahayd ee xamar la joogay hawlihii baaxadda lahaa ee la qabtay ee ka wada qayb galeen dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed khaasatan heer federaal baarlamaanka iyo aqalka sare waxaan dadka reer Puntland si gaar uga mahadcelinayaa dareenka wanaagsan iyo talada joogtada ay nala garab joogeen wafdigeennii halkaa joogay waxay muujiyeen sida ay ugu weyn tahay midnimada Soomaaliyeed iyo qarannimada Soomaaliyeed talooyinkoodii wanaagsanaa ay mar walba nala garab taagnaayeen dulqaadkii iyo tanaasulaadkii faraha badnaa ee Puntland ay samaynaysay muddooyinkaas howluhu ku jireen waxay markhaanti ka noqotay dowrka Puntland ee hogaaminta geedi socodka dawlad dhiska Soomaaliya waxaan uga mahadcelinayaa shacabka waxaan uga mahadcelinayaa isimada culimada ganacsatada dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan haweenka sida ay mar walba uga walwalayeen in taayirkii wareegaya ee Soomaaliya dib ugu socotay inuusan istaagin waxa Ilaahay mahadiisa in maanta loo dareeray doorashadaas oo kamid ah tiirarka ee ugu muhiimsan marxaladan Soomaaliya ay soo kabanayso oo la rabo in dawladnimadeedii ay dib ula soo noqoto is-aaminkii uu soo noqdo dadka ay noqdaan dad midaysan runtii duruufihii la soo maray ma habboona inaan maanta dib ugu noqdo ka sheekeeyo dalku 30 sano wax ku dhow ayuu marna dawlad la'aan ahaa marna ku meel gaar ahaa marna dawladda hadda federaalka ah ay dhismo ku socday geedigii waa socdaa dulqaadkii iyo dadaalkii dadka reer Puntland waa laga rabaa waxa loo baahan yahay inay midnimada adkeeyaan midnimada Soomaaliyeed qarannimada Soomaaliyeed waxa kale oo aan insha Allah rajaynaynaa in nabadgelyadooda iyo dawladnimadooda ay ku fara adeegaan dalka runtii muddadii burburka ahayd waxay fursad u heshay Puntland inay 22 sano xasilooni siyaasadeed iyo maamul dawladnimo iyo nabadgelyo iyo kala dambeyn ay ku soo naalooto waxaan rajaynaynaa toodana inay ilaashadaan ummadda Soomaaliyeed ee duruufaha adag haystaan oo amni darradu haysatana inay ka dulqaadaan inay qayb ka qaataan waxaan rajaynayaa bulshada reer Puntland guud iyo dibadba inay mar walba muujiyaan dareenkooda dawladnimo dareenkooda qarannimo dareenkooda midnimada Soomaaliyeed wax kasta oo caqabado oo jira duruufta ay doonto ahaatee waxaan rajaynaynaa in laga gudbi doono haddii isku duubnaan iyo midnimo la muujiyo waxaan u rajaynaynaa deegaanada nabadgelyo darradu ka jirto oo cadowga al-shabaab ay dul fadhiyaan in ilaahayna ka dulqaado dadka Soomaaliyeedna ay u diyaar garoobaan in meelaha khilaafaad ku jiro nabadgelyo iyo wada hadal iyo xasilooni lagu soo xalliyo in wixii dhiman ee Soomaalinimada inay hore u dhaqaaqdo hortaagan iyadana oo cadow ku ah in laga qabto gudaha iyo dibadda waxaan noo rajaynayaa guul waxaan halka ka sheegayaa anoo ku hadlaya magaca dadweynaha Puntland inay Puntland diyaar u tahay inay kaalinta ku habboon dawlad dhiska Soomaaliya inay ka qaadato mar walba aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh